بسم الله الرحمن الرحيم. كسر وهذا عشر أمانة هدول هنا دوان وقهل الدونا arrays in C++ and arrays و variable kaas oo ku keedin kara multiple values tusaalahaan oo kale variable-ka waxa waaye waa hal qiimo kaliya ayuu ku keedin karaa laakiin arrays-ka waxay ku keedin kartaa inta adiga aad rabto oo qiimo ah sidoo kale array-da waxyaabaha markii C++ iyo luqadka kale aan isticmaalayo baan aadka u jeclahay array waa variable kaasoo ku keedinaya qiimo aad u fara badan intaad rabtaa tusaalahaan oo kale hadda waxaan leeyahay inta samo for hadda waxaan sameeyay array nooceedu uu yahay integer marka variable aan sameynayno waxaan naqaanaa inta waan naqaanaa inaad marka hore sheegto nooca variable-kaada kadibna variable name-kaada laakiin marka aan joogo arrays sina sidoo kale waa inaan sheegaa nooca ay noqonaysa array-deeda haddii double ay noqonayso haddii integer ay noqonayso iyo haddii character ay noqonayso marka waxaan sheegay nooca array-deeda kadib waxaan qoraa array name magaca array-da markaas kadib waxaan sameynaa marka wax la yiraahdo waxaan furaa bracket-kan xiraa waxaan leeyahay marka array-deeda maxaan rabaa inaan ku keediyo meeqa element aan rabaa inaan ku keedsado tusaale ahaan oo kale 4 aan rabaa hadda line-kan marka compile and run aan dhahno muxuu sameynaa compiler-ka wuxuu memory-ga kaaga qabanaa boos 4 ah oo noocoodu yahay integer markaas kadib waxaan leeyahay equal waxaa hadda memory-ga ka haystaa 4 boos soo ma tan koowaad oo kale tusaalahaan oo kale waxaan gelinaa 6 kan kale waxaan gelinaa 99 kan kale waxaan gelinaa 45 kan kalena waxaan gelinaa 50 waxaan hadda aan qoray maxay ka dhigan yihiin marka array-da marka la sameynayo ama declaration of array waxa waaye siyaabo kala duwan ayaa loo declare gareeyaa ana hadda waxaan isticmaalay wax la yiraahdo initialization array-da waxaan siiyay size-keeda kadibna isla markii qiimihii ayaan ku shubay inta waxay ka dhigan tahay in 4 boos oo integer ah memory-ga laga qabto kadibna value ay qaadanayaan intaan uu noqdo waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 soo ma waa kaasa hadda array-deeda waan samaystay size-keeda waa 4 qiimaha igu jirana kan koowaad waa 6 kan kalena waa 9 kan kalena waa 45 kan kalena waa 50 marka qiimahan inta ku jira marka aan soo daawacayo sidee ayaan shaashada ugu soo muujinaa hadda daan see out samo sidaan ku daawaca marka tusaalahaan oo kale waxaan rabaa 45 si u daawaca marka haddaan dhaho 1 2 3 waan dhaho sida 3 kadibna aan dhaho end line hadda qiimaha isoo bixi doona muxuu noqonaa ma 45 mise qiimo kale waan arki doonaa compile and run wow kontona isoo baxay 45 sugaya qiimihii kan ugu dambeeya isoo baxay sidee marka aan joogno array tiradayna waxay ka bilaabanaysaa 0 halka marka anaga wax tirinayno aan dhahayno 1 2 3 4 5 markasta waxaa maskaxda ku haynay array markaa joogto waxay kaaga bilaabanaysaa 0 1 2 and 3 hadda qiimaha ay soo daawacnay 3 waa konton waa kaasa hadda hadii meeshan 0 way ka bilaabanayaan soo ma 0 hadaan dhaho hadda maxay soo bixi doonaa 6
هذا قيمه ار ما يكون قناه marka 0 1 2 سوما akaasa waa 0 eber hal labo saddex akaas 45 numberka ugu dambeeya marka rabana waa kaasa markasta waxaan maskaxda ku haynaa numberka ugu dambeeyo waa size of array-gaada oo laga jaray hal markastana waxay kaaga bilaabanay 0 hadda afartu way tahay waa kana 0 1 2 3 eber ka bilaabo fartaada ku tiri 0 1 2 3 afraad ay sitaa marka numberka ugu dambeeyana waa kaas sida kale oo declaration lagu sameynayo array cashar kale aan uga hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa ku mahadsantihiin daawashada cashirkan waxaan idin leeyahay fi amaan illah